Ferguson ay sheegeen in xil ciyaareedkani muddo aad u fara badan bay raajicinayeen qorshaha ku aadan golahayaha kooxda Ajax ee Onana balse xilligani waxa kaliya ku soo hari doonta dalabka golahayahaasi kooxda kubadda cagta Chelsea oo toddobaadkii ugu dambeeyay bashaaca ka qaaday inay isku day xoogan ay sameyn doonaan tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaana markaa mudnaanta koowaad siin doona golahayahani ka tirsan kooxda kubadda cagta Ajax Onana oo la qorsheenayo inuu xilligani ay macquul tahay ka soo dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Ajax horyaalka wadankaasi Holland Onana ayaana markaa ka mid ah mudnaanta ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Chelsea maadaama ay muuqanayso kooxda Chelsea inay markaa natiijo ka soo gaari garin golahayaha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Chano Braga hadda Frank Lampard ayaana markaa siinaya muhiimadiisu in sida ugu dhaqsiyaha badan geegida Stamford Bridge uu ka diro golahayahooda Keba kaasi oo aad ugu fashilmay mustaqbalka geegida Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea Onana ayaana loo arkayaa inuu wax weyn ka bedeli karo baahida shabaqada kooxda kubadda cagta Chelsea sida marka uu aaminsan yahay tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ciyaaraanka kooxda kubadda cagta ee Valencia Ferran Torres ayaana markaa gabi ahaanba la sheegay in uu ku sii dhawaanayo ku biirista garoonka Etihad ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City sida laga soo xiganaya qaar ka mid ah warbaahinta wadankaas Isbaanishka ayaa la soo warinaya in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallin Pep Guardiola uu mudnaanta koowaad u siinayo ciyaaraankaasi 20 jirka si markaa uu u noqdo bedelka rasmiga xidiga Leroy Sané oo markaa u dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Germany sheekada ugu weyn ee tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa ah in uu kooxdiisa markaa uu ka dhiso qayb walba ee laga dareemayo caajis aad u fara badan balse waxa la xusay in ciyaaraanku uu aqbalay waa laacibka kooxda kubadda cagta ee Valencia Ferran Torres asaguna sidoo kale ciyaaraanku uu diiday dalabyo kale ee ka soo gaaray qaar ka mid ah kooxaha Manchester City ee ku xifaaltamaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska hadaba City ayaa macquul ah inay kula wareegto ciyaaraankaasi dulcageed gaaraya 40 milyan oo lacagta ganiga waxaana kooxda kubadda cagta Manchester City ay kali ku noqonaysaa dalabka ciyaaraankaasi Ferran Torres kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa mar kale laga soo diiday dalabkii ay ka gudbiyeen ciyaaraanka u dhashay wadankaasi Ghana ee Thomas Partey oo xilligan ka dhex muuqanaya magaalada Madrid wadanka Isbaanishka gaar ahaan kooxda Atletico Madrid sida ay qorayso jirada The Guardian ayaa la xusayay in kooxda kubadda cagta Atletico Madrid gabi ahaanba aysan suurtagelinin dabci labaad isku dayga kooxda kubadda cagta ee Arsenal tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mikel Arteta ayaa ujeedkiisu ahaa in isbedel xoogan oo damacsan yahay xil ciyaareedkan si kooxda kubadda cagta Arsenal ay ugu soo faa'iideysato xil ciyaareedkan suuqa kaliibsiga ciyaartooyda hadaba kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaana markaa xusaysa labada xil ciyaareedii ugu dambeysay ciyaaraankan boos joogta uu ka haystay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid asaguna muuqanaysa in laacibkan magaalada Madrid uu aad ugu faraxsan yahay ayadoo saddexdii biloodii ugu dambeysay ciyaaraankan aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Arsenal ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska tababaraha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid macallin Diego Simeone ayaana markaa fursad wacan u arkay in ciiraankani uu halbolo muhiim u yahay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waa laacib markaa ka soo muuqanaya kulamada ugu xiisaha badan markii loo eego sida horyaalka liigaha wadankaas Isbaanishka iyo tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League 27 jirkan ayaa gabi ahaanba markaa la filayaa inaysan suurtagal u noqon doonin qorshaha ugu dambeeya ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee damacsan tahay maadaama dalabkii labaad ay ka gudbiyeen ciiraankaasi ay ku soo fashilantay kooxda kubadda cagta Arsenal xidiga reer Afrika ee Thomas Partey kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka dhisan horyaalka wadankaas Isbaanishka ayaa guud ahaanba sheegtay inay gacantooda ka bixin doonaan xidig u dhashay wadankaasi Serbia ee Luka Jovic laacibkani ayaa ku fashilmay tan iyo xilligii uu ka soo degtay garoonka Santiago Bernabeu kooxda kubadda cagta Real Madrid balse wiilkan reer Serbia ee Luka Jovic ayaa la qabsan waayay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Real Madrid asagoona markaa laacibkan uu ahaa xidig si weyn kaga dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Frankfurt laakiin waxa xilligan la xiriirinaya kooxo ay ka mid yihiin Napoli AC Milan kooxda kubadda cagta AS Monaco kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay ku dartay 9 ciyaartooy ee la filayo xil ciyaareedkan inay ka dhaqaaqi doonaan kooxda kubadda cagta Real Madrid garoonkeeda Santiago Bernabeu sida uu xusayo agaasimaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez hadaba Luka Jovic ayaana markaa loo badin doonaa inuu ka soo dhex muuqan doono mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga maadaama wakiilka ciyaaryahankaasi uu ku dhex meereysanayo dalkaasi Talyaaniga asagoo kulamo gargaar ah la qaatay madaxda
sare ee labada kooxood ee Napoli iyo kooxda kubadda cagta AC Milan taasi ayaana markaa muuqanaysa in Luka Jovic ay macquul tahay inuu ka soo dhex muuqan doono sirada wadankaasi Talyaaniga gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria ayaa kalsooni weyn ku qaba in xidigiisa Lionel Messi uu sanadmeelna kaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Barcelona heshiis cusubna uu kooxda markaa u saxiixi doono kalsooni weyn ayaan ku qabaa xidiga u dhashay wadankaasi Argentine capitano Lionel Messi sidaas waxa yiri gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria natiijo walba waxa la xusayaa in ciiraankani u dhashay wadankaasi Argentine Lionel Messi aad loola xiriiriyay in uu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Barcelona si uu ugu degdego riidiisu ku aadanaa in uu la shaqeeyo tobariis hore ee Pep Guardiola xilligan hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester City sheekooyinka inta badan ay aad ku hadlayaan warbaahinta wadanka Isbaanishka ayaa ah in Lionel Messi marka uusan ku qanacsanayn hab dhaqameedka agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona balse waxa muuqanaysa in xilligan kooxda kubadda cagta Barcelona ay wado olole ay ku hakinayaan xidiga reer Argentine ee Lionel Messi natiijo walba waxa uu aaminsan yahay Josep Maria in ciiraankani sida ugu dhaqsiyaha badan heshiis cusub uu saxiixi doono kooxda kubadda cagta Barcelona asagoona doonaya inuu meesha ka saaro hadalhaynta ku aadan in capitano Leo uu sida ugu dhaqsiyaha badan ka dhaqaaqay stadia Camp Nou xil ciyaareedkani kooxaha kubadda cagta Manchester United iyo Chelsea ayaa wali ku guda jira qorshoodii ku aadanaa xidiga kooxda kubadda cagta Leicester City ee Ben Chilwell لاعبكاني أيانا مركا موقانيسا إن حلقاني أي هيل كران لباداسي كوحود صباحا كو آدن إن عيران كانوا ودونيو إنو كهو بدش مستقبل كوحدو كبدا عكتا ليستر سيتي تضبادي ودن بيا أيا لاعبكاني مامل كوحدو كبدا عكتا ليستر سيتي وحي حسين إن حيران كأوسن حل عيارات كاني كدا قاقدون استاديا كوحدو كبدا عكتا ليستر سيتي شخصيا باللاعبكاني بنجل ولا يالسو أوغانيا إنو آد مركا ودونيو عيران كإنو سن كم مقنانين كقيبقل كتبتن كريال كقارضة يوروب أي يوفا تشامبيونز ليغا أساقونا مركا صوحيغانيا xidigihii halbowlaha u ahaa kooxda kubadda cagta Leicester City guud ahaan qaarkooda in ay isaga dhaqaaqeen kooxda waxaan doonayaa inaan eegto barnaamijyada xilligan ku aadan kooxaha aad ugu xifaaltamaya afafka hore horyaalka wadankaasi Ingiriiska Ben Chilwell ayaa hadafkiisa wax weyn ka bedelay ayadoo muuqanaysa inuusan dhigaysan doonin damciisa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Leicester City waxaana xilligan laga dheehan karaa hadalka xidigaasi Ben Chilwell inuu aad u soo dhaweynayo dalabada sida kooxaha kubadda cagta Manchester City Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Chelsea oo dhamaantoodba aad loola xiriirinayo ciiraankani balse waa laacib soo jiidasho mudan maadaama xidigu marka uu go'aansanayo in uusan diyaar u ahan xil ciyaareedkan waqti kale inuu la sii qaato kooxda kubadda cagta ee Leicester City tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa wada qorshihiisa ku aadanaa inay markaa xoojiyaan dalabka ciiraanka kooxda kubadda cagta ee Bournemouth laacibkan u dhashay wadankaasi Holland ayaa markaa loo arkiyaa xidigaha xilligan ku haboon inay ku soo biraan garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola miimadiisu waxay tahay in kooxdiisa ay markaa hesho dhowr difaaca sida David Alaba ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayern Munich Koulibaly oo asna markaa u ciyaaraya Napoli Skriniar oo asna markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan ilaacibkan AK oo asna markaa u ciyaaray kooxda kubadda cagta Bournemouth miimadiisu waxa ay tahay Pep Guardiola oo kaliya in difaacyadaasi intooda badan ba ay imaan doonaan garoonka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola wuxuu leeyahay isbedel xoogan ayaan sameyn doonaa muhiimadeenu waa inaan dhigaysanaa hal ku dhiga taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City waa inaan sidoo kale aan u hoggaansamnaa wax walba ee taageerayaasha marka ay ka tabanayaan kooxda ayaa laga soo xigtay Pep Guardiola sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan suuqa saameyn ballaaran kooxda Manchester City ugu yeelan doonta waxaan rajayn doonaa inaan guul weyn aan ka soo gaali doono hamigayga ku aadana ciyaartooyda xilligan bartaameedka kooxda kubadda cagta ee Manchester City dhinaca suuqa Pep Guardiola ayaa rajo weyn ka leh in ciyaartooydaasi xiriir kala duwan uu la sameyn doono inta ka harsan xil ciyaareedkani labada kooxood ee kala ah Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ayaa ku sii dhawaanaya dalabka ciiraanka kooxda kubadda cagta Rennes Camavinga maadaama dhawaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ee isaga baxday damaceedii ku aadana ciiraankaasi Camavinga ayadoo Real ay cadeysay in xilligan aysan la soo saxiixan doonaan heshiis qaali ah Camavinga wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu hadalhaynta badan ee qaybta qadka dhexe ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyda qaaradaas Yuruba balse Real Madrid marba hadii gacanta ay ka taagatay dalabka ciiraankaasi Camavinga waxa isugu soo haraya oo kaliya Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain
labadaasi kooxood ayaa jirada marka ay soo xiganaysaa in xilligaani laga sugayo miisaaniyada ay sameyn doonaan Eduardo Camavinga ayaa markaa diyaar u ah inuu ka soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Rennes iyadoona markaa ciidanka uu sheegay inuu dhageysan doono dalab walba ee mustaqbalkiisa uu ku horumarin karo kooxaha kubadda cagta Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ayaa xilligaani ah labada kooxood ee aadka markaa u xusaya inay ku jiraan hogaanka dalabka saxiixa ciidankaasi ee Camavinga Eduardo Camavinga ayaa muhiimad gaar u arka oo kaliya inuu ku biiro koox awood ku leh siiba ka qaybgalka tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League tani waa tusaale weyn sida wakiilka ciidankaasi uu xusayo balse ma jirto labada kooxood ee Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain koox soo bandhigtay qiimaha ugu dambeeya ay ku doonayaan inay kula wareegaan xil ciyaareedkani xidigaasi kooxda kubadda cagta Rennes ee Eduardo Camavinga kooxda kubadda cagta Inter ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa markaa doonaysa hasiis joogta inay la saxiixdaan xidiga u dhashay wadankaasi Chile Alexis Sanchez waxaana ay bilaabayaan qorshoodii ku aadanaa inay xiriir ay la sameeyaan madaxda sare kooxda kubadda cagta Manchester United si ay kaga dhaadhiciyaan in Sanchez hasiis joogtaha ay markaa ka saxiixdaan xil ciyaareedkani jirada Gazzetta dello Sport ayaana markaa qoraysa in kooxda kubadda cagta Inter Milan ay marka hore doonaysa inay kulanka ugu dambeeya ay wada hadal ay la qaataan madaxda sare kooxda kubadda cagta ee Manchester United sidoo kale Inter waxay doonaysaa inay kala xaajooto arrimaha dhaqaale ee ciidankaasi uu ka qaadanayo kooxda waxaana sidoo kale Alexis Sanchez uu ku dhawaaqay in uu heshiiskiisa mushaarkeed uu dhimi doono si ciidankaasi u noqdo mid xur ka ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United Alexis Sanchez ayaa markaa xusaya in uu dhimi doono miisaaniyadiisa dhaqaale waxaana uu doonayaa oo kaliya inuu ka xiroobo kulaabashadiisa Stadio Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United balse gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Inter ayaana markaa si cad u sheegay in ay xilligan u dhawaanayso kooxda kubadda cagta Inter Milano heshiis joogto ah inay la saxiixan doonto xidiga Alexis Sanchez kabtankii hore kooxda kubadda cagta Chelsea Ivanovic ayaana markaa la filayaa inuu dib ugu soo laaban doono horyaalka wadankaasi Ingiriiska maadaama xiriir aad u wanaagsan ba uu la leeyahay tobaraha kooxda kubadda cagta Everton ee Marcelo Ancelotti لاعبكاني أيانا مركا ديدا هشيس كوريني أصو بانديجين كوحدو كبدا عكتا زينت استي بطرسباك وحنا عيرانكو اوغو عانسانيا إنو ديب اوغو لابان دونو هريالك ودن كاس إنجريسكا إيفانوفيتش داديس واسوداني لحجر وحنا موقانيس إن حيسا غارو وقبو كلا بشادو هريالك ودن كاس إنجريسكا tobaraha kooxda kubadda cagta Everton Marcelo Ancelotti ayaana markaa sheegaya in muhiimadiisu ay tahay ciidankaasi xil ciyaareedkani ba in uu dib ugu soo celiyo Premier League Ivanovic shakhsiyan ba wuxuu diidan yahay in waqti kale uu la sii qaato kooxda Zenit St Petersburg maadaama uu doonayo in waayis ciyaareed uu ku soo gabagabeyn doono mid kamid ah kooxaha kale horyaalka wadankaasi Ingiriiska waxaana muuqanaysa in kooxda kubadda cagta Everton in xilligaani wada hadallo xiiso badan ba uu soconayo taasi oo muuqanaysa kabtankii hore kooxda Chelsea ee Ivanovic inuu uu ka soo dhax muuqan doono hogaanka kooxda kubadda cagta Everton ee macallin Carlo Ancelotti ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Faransiiska ayaa bilaabi doonta qorsheedii ku aadanaa xidiga Ndombele ee u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur in ay kala xaajoodaan madaxda kooxda kubadda cagta ee Tottenham PSG ayaa doonaysa